halkani waa Wacyi TV kusoo dhawaada barnaamij ra'yi hororina oo aan ka sameeyno bulshada Soomaaliyeed oo aan ku eegayna Soomaaliya sida ay noqon doonto sodonkan ee soo socota dadka Soomaaliyeed ayaan waxaan ku eegi doonaa ra'yigooda ku aadan sida ay u arkaan Soomaalida hadda iyo Soomaalida sodonkan soo socota iyo tii la soo dhaafay sababna Soomaaliya waxa ay soo martay marxalado aad u kala duwan sodonkii sano ee la soo dhaafay balse hadda waxaan rajaynaynaa in ay noqoto sodonka sano soo socota Soomaaliya horumartay Soomaaliya sameysay isbedel badan Soomaaliya aan ahayn Soomaalidii sodonka sano soo dhaafnay sida ahayd waxaan rajaynaynaa in ay noqoto sodonka sano soo socda sanadii ka horeeyay sodonkii burburka ku soo jirnay si la mid ah ama si ka sii wanaagsan sanadkan ku guda jirna dabcan sida dareemi kartaan ama u jeedaan waa 2019 wadanka sida uu kobcayo xaaladiisana waa dareemi kartaan sidoo kalena waxaad arki kartaan dhalinyarada iyo sida ay u wacyi gashin yihiin ama ay u sameynayaan ficilo inta badan ay ku horumarinayaan wadankooda waxaadna arki kartaan dhalinyaradu inta badan ay ku fogan yihiin sida wadankooda horumarin lahaayeen marka 30 sano kadib aad ka hadlaysaan xitaa waxaan aaminsanahay 10 sano kadib wadankanaga in wax badan iska bedeli karo haddaba haddaan sawir guud ka bixiyo 30 sano kadib wadankii sidoo ahaan lahaa waxaad dareemi kartaa wadankan waxa uu leeyahay kheyraad fara badan waxa wadanka ku duugan shidaal fara badan oo badda iyo barigaba ku jira sidoo kale waxa wadanka uu leeyahay kheyraad marka inta adigu aad ka fakaraysid in ka badan uu leeyahay wadanka ayadoo isaata haddana waxaan aaminsanahay xaqiiqatan haddii hal ceel oo kamid ah shidaalka wadankeena Soomaaliya la soo saaro 10 sano kadib processka sida hadda uu u socdo madaxweyne maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre sidii haatan wax ku wadaan markaad u fiirsato iyo qorshayaasha ka degsan si loo soo saaro shidaalka markaad fiiriso sharciga shidaalka loo dejiyay iyo markaad fiirsato xaaladda wadankeena sida uu yahay 30 sano kadib waxaad dareemi kartaa in maanta boqortooyada Saudi Arabia sida ay maanta u horumarsan tahay ka hormari karno xitaa waxaad dareemi kartaa in wadanka meel kasto wadankeena Soomaaliya aan qurxin karno qof kasto shakhsi ah oo Soomaali ahna dhaqaalihiisu wuxuu kobci doonaa boqol jibbaar haatan dhaqaalihiisa sida uu yahay qof kasto Soomaali ah waxa la sameeyay hadduu Ilaahay ku roon yahay imagination ama wax yaani macluumaad la diyaariyay qof kasto Soomaali ma dakhligiisu wuxuu yahay $100 qofka dabaqada dhexe hadda wuxuu noqon doonaa 10 sano kadib ma 30 sano kadib 10 sano kadib wuxuu noqon doonaa $100,000 in sanadkii uu helayo qof Soomaali ah ama bishii uu helayo marka 30 sano kadib waad dareemi kartaa xaalad ay noqon karto qof kasto $100,000 wax ka badan uu heli karo bil ahaan bil kasta marka waa maasantihiin bismillaah magacayga waa Nuur Maxamed Cabdi run ahaantii markaan fikradeyda ka hadlo sodonka soo socota Soomaaliya markii loo fiirsho sanooyinka hore soo dhaafay 30 sano burburaha Soomaaliya soo martay laga soo bilaabay 91kii dabcan waxaan dareemaynaa in markaas aysan jirin waxbarashada haatan say u jirto dhalinyarada maanta hadii la yiraahdo 18ka dhalinyarada 20ga jira waxay yihiin dhalinyaro wax baratay waxaan dareemayaa in sodonka sano soo socota Soomaaliya isbedesho oo ay kiigsato nolol raaxo leh sidaad ka dareemaydaa maantaba in dadku damaashaadayaan maantana aan gaarnay guulaha la taaban karo sida dariskeena inuu faragashin ugu sameeyo sidaan iska ilaalinayno waxaan insha Allah rajaynayaa ka dhalinyaro ahaan in aan sodonka soo socoto aan dhisa doono dalkeena si ma u soo baxsano macdanta ku jirto gobolladeena Soomaaliya meel kasto ay kamid ah waa macdan iyo badeena sidoo kaleeto xaaladda Soomaaliya horta hadda maanta meel fiican ay maraysaa insha Allah waxaan rajaynaynaa 10 sano ee soo socoto inay sidan hadda ay ku socoto haddii ku sii socoto inay heer fiican ay gaari doonto bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Aadan Daahir Cabdi dii la yiraahdo fikirkeyga ka dhiibo Soomaaliya maanta heerka ay marayso iyo 10 sano soo socota heerka ay ku dhaqaaqi doonto fikir ahaan haddii aan ka dhiibto hadeertaan 4 sano 3 sano la soo dhaafo madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo uu hayay wax weyn ba iska bedelay haddana waxaan rajaynayaa 10 sano soo socota wax weyn iska bedeli doonaan waayo sida Soomaaliya wixii macnaha ay loo qoray inay marto marnaba seegmayso bas waxaan rajaynayaa fikirkeyga aan ka dhiibanayaa oo aan ila tahay aniga 30 sano soo socota ama 10 sano ka soo qaadba in ay wax weyn iska bedeli doonaan insha Allah السلام عليكم magacaygu waa Abshir Suuda Cali Soomaaliya sodonka soo socda waxay noqon doontaa insha Allah nabad inay noogu dhisanto ireereen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وعبد الشيد عبد الله حسن وكما عليه إنجنير رشكا هدي فكرك كدر صدق تي في جان Soomaaliya insha Allah taala
soddon sano oo soo socoto waxay noqon doontaa waddan oo horumarsan dhinac walba dhinaca siyaasadda dhinaca xorriyadda dhinaca macnaha xorriyatul qowlka social worka ala dhaho qof walba wuxuu leeyahay xuquuqda gabdhaha iyo xuquuqda qof walba ay leedahay insha Allah ta'ala Soomaaliya waa sida hadda loo jeedo meelihii waxbarashada iyo wadooyinkii dhismooyin badan socdo mashruucyo badan oo dadkii xataa bulshadii waxay iskugu imaanayaan meelo sidaan oo kale aad u qurxoon isbedelkaas oo dhan Soomaaliya hadda noo muuqdo soddonka sano soo socota iska daa aan waxaan aaminsanahay 10 sano hadda soo socoto in Soomaaliya sare ka weyn sameynayso wadamada Afrikana inaan loo gelin doono magacii waxa la Maxamed Cabdulla Ali wallahi su'aashan hadii ka jawaabo ama ra'yi waxaan ka qabaa soddonka sano hadda soo socdo in wadanka uu ku shaqeyn doono wax la yiraahdo technology soo wadama marka inuu san qofka daalin oo asoo jiifo inuu technology u shaqeysto mada wadanka waxa dhilan wadan barwaaqaysan akuu rajaynaan soddonka soo socdo